natiijo qaranku mahadiye ayay wax ka yar 2 toddobaad ku soo hooyeen ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo masaafo 740 kiiloomitir ka durugsan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ka wada howlgallo jab xoogan oo ku gaaray argagixisada Al-Shabaab Labi Dulle dhabana dhulku hays iyo Sina Dhaqo oo ah deegaano muhiim ah oo ku beegan jihada koonfureed ee magaalada Dhuusamareeb ayay ciidamadu gaareen toddobaadkan iyagoo haatan wax ka yar 20 kiiloomitir u jira magaalada Ceel la helay oo qofka lugta ah isaga socdo fariisimaha hore ee ciidamada iyo deegaankaasi wax ka yar hal saac dhaqaaqa ciidamada qalabka sida oo ay ka wada qayb galayaan ciidamada qaybta 12aad ciidanka commandoska Gorgor ciidamada booliiska Soomaaliya oo ay weheliyaan qaybta sida gaarka ah u tababaran ee Haramcad iyo kuwa Nisa ayaa ku sii wajahan magaalooyin la tiicay musiibooyinka argagixisadu muddada dheer ku maashaysay kuwaasi oo dadweynaha ku nool ay sugayaan miciin dawladeed iyo muuqa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya furimaha hore ee dagaalka oo ay si isdaba joog ah ugu sii qulqulaysa taakulada shacabka iyo mas'uuliyiinta Galmudug la garab joogan geesiyada wadanka ayay maanta deeq isugu jirta cunto fudud khudrad iyo agab kale ugu geeyeen aagga hore xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo qaarkood soo xirtay direeska ciidamada si ay howlgallada wax uga sii hogaamiyaan xildhibaan Xaashi Daahir Diiriye oo ku hadlayay afka xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa tilmaamay in tilaabadan ay ku garab joogsadeen ciidamada ay noqon doonto mid aan istaagin oo ay sii wadi doonaan ilaa iyo la soo afmeero firxadka argagixisada annagoo ah xildhibaanadii Galmudug oo ka wakiila deegaanka maanta waxaan soo booqannay aagga hore ee ciidanka qalabka sida oo dagaalka kula jira nabadiidka qawaariijta ah waxaan ugu mahad celinaynaa sida ay nimankaas isaga dhiciyeen waxaan joognaa maanta laba dulaan joognaa oo shalay laga sifeeyay nimankii nabadiidka ahaa ciidankuna maanta ku sugan yahay kuna dabaanshaadayo ku qabaysanayaan cabbayaan joogaan annaguna aan ku soo booqannay booqashadanadana aan sii wadi doonno haddii alla idmo waxaan ugu mahad celinayaa sida ay ugu dhabar adeegeen insha allah biidnillaahi kariim haddaan nahay degaankii iyo haddii shacab la yahay intaba waxaan ka codsanayaa in leesu kaashado waxba nagama xigaan haddii alla idmo annaguna diyaar baan u nahay insha allah taliyaasha iyo saraakiisha iyo ciidanka qalabka sidana waxaan ugu mahad celinayaa uguna hambalyeynaa ilaahu mahad ka sugnaatee sida ay u xoreysteen wadankooda ay ugu dhabar adeegeen soo dhawaada waa intaas u sii dhawaataan haddii alla idmo annaguna wayn garab taagana heel iyo hoo xildhibaanadii iyo wasiiradii joogay caasimadda tabaryarada nimanka iyo ciidankanaga xoogooda waxaa caddeyn u ah daraad markii madaxweynuhu uu soo booqanayo wuxuu ku soo booqday Sina Dhaqo maantana meesha aan joognaa oo 2 maalmood kadib waa Labi Dulle marka saas awgeed waxay ku cadeynayaan in ciidanku hore u sii socdo xilligan wixii laga bilaabana waxay noqonayaan xilligii saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida shahaada sharafta ay kala qaada lahaayeen dalacsiin haday tahay shahaada sharaf haday tahay mudaan niman dalka u dhalan oon dadka u dhalan oon aqoon oo ajnabiya oon shaqo ku lahayn waay waxa dadka naga haysta raba inay gumaadaan raba inay maaragtay cadow isaga dhigaan u sheegay inaan annagu gaalanahay ayaguna muslim yihiin annaga muslimkiya annaga ku dhalanay annaga ku dhaqanay annaga u dhalanay annaga ah ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo guulaha ay gaareen ay qayb ka tahay inay qabteen fariisimaha argagixisadu isu tusayeen inay ahaayeen kuwa adag oo ay ka difaaci karaan magaalooyinka ay joogaan ee Ceel Dheer, Ceel Buur, Galhareeri iyo Xarar Dheere ayaa sidoo kale dilay in ka badan 30 dagaalame oo argagixisadu u soo dirsatay inay shacabka ku dhibaan dhulka dhagaxa ah ee iminka laga eriyay oo aan dib dambe argagixisadu u soo hawaysan karin Cabdullaahi Warsamo Rooble warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.